ila joogo gaashaanle geyna oo ka mid ah saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliya meelo badan oo Muqdisho ka midana aad looga yaqaan oo lagu xasuusiyo guud ahaan Soomaaliya waxaynu ku wada sugnaa mid ka mid ah furmaha dagaalka gobolka Hiiraan dhowr su'aal ayaan ka weydiin doonaa iskaashiga qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo isku kaashanaya in al-shabaab laga saaro deegaano wali gacanta ay ku hayaan oo ay ka mid tahay magaalada Ceelbuur iyo deegaano kale taliya soo dhaw ugu horreyn bal halkan maxaa ka socdo bismillaahir rahmaanir rahiim kaamirada ilaahay tawfiiq hana waafajiyo waxa way meeshaan aan joogno waa sida aad u sheegtay waxa la yiraahdaa warar dhumale waxay ka mid tahay goobaha oo ka furan yahay la dareer qaarka gaxsal dagaalanka qabiilaadka deegaanada degan iyo dawladda federaalka dhammaan meeshaan hadda waxa isugu yimiday saraakiil badan oo noocyo kala duwan leh iyo beesha la yiraahdo Habargidir iyo Xawaadle iyo Mursade ujeedka la isugu yimidna wuxuu ahaa in mataqaanahay sidii loo dirir lahaa markaas oo deegaanada ay haystaan looga saari lahaa iyo guud ahaan waddanka Soomaaliya waa tahay marka laga tagay inta sirgaal qaran dhinaca kale mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa ciidankooda qayb ka tahay hogaaminaysay muddo Hiiraan iyo Galgaduud ayaa joogtay maxaa wali isku qabsan lahayd howlgalkiina oo aad u guulaysan lahayd ma guul darro ma jirto laakiin waxa waaye waqti kasta waxay ku suurta galaan ahaashaha alle tiyaa dhineed laakiin waxaan rajaynayaa inay soo gabagabay doonto haddii la ogolaado asbuucyada hadda aan ku jirno waxaan leeyahay marka cid kastoo Soomaaliya kii afka wax ka dhigi karaa kii idinka wax ka dhigi karaa kii jaabka wax ka dhigi karaba waxaan la ku soo dhaweynayaa oo ku baraarujinayaa wixii dambiyo ka yimaada waxaa qaadanaya dadka diinta u saaxiibka ama bartay ayaa qaadanaya waxay noo sheegeen culimada islaamka qofka ay dilaan inuu ahlu khayr yahay kii dilaan ahlu khayr yahay waxaan leeyahay marka ha laga qayb qaato waxa way mataqaanaa isag ajirkaas iyo jannadaas wiis in dhaafin xaj inay taan aaminsanahay oo aan aaminsanahay haddii wax u gaaraan dad ay wax u gaarsiiyaba waxaan ka rabaa marka dhammaan u sheegaa bulshada Soomaaliyeed in ay mataqaanaa ka qayb qaataan waxaan rajaynayaa maanta ayaanka aan taagna ayaankeeda kale meelo caan oo meeshaan aan hadda joogno ahayn oo ay hadda ku sugiino talisyo ah inaan ka soo warrami doono haddii la ogolaado oo naga fiirsan doontaan nala daawo doontaan waa tahay maanta halkan waxaa looga dhawaaqay isbahaysiga qaar ka mid ah beelaha dega Hiiraan iyo Galgaduud sida beesha Habargidir Xawaadle iyo Mursade gaar ahaan Habargidir Cayr maxaa sababay in waqtiga isbahaysi beelahaas samaystaan iyadoo howlgalku soconayo ku dhawaad sanad waxaa sababay ninka la yiraahdo si ay soo imaan kaadi aan mataqaanaa aagaas Xawaadlaha aan bariyahan ku mashquulaano dhinaca Habargidirta dhinaca qodmaana bay meel u aadin go'aankaas ka soo baxay oo laga midoobay waxaa la go'aansaday sida mataqaanaa shalay loo dhashay ama mataqaanaa ama diiniye in loo wadiro oo mataqaanaa ay sheeg aan maalin oo la isugu simino mataqaanaa qol heblaha aadan ku kaasaan isku fiirsan waxaa jira fariin aad siyaasiyiinta iyo madaxda kale ku sugan fadhiga kani aad ka sheegtay oo aad kula daarantay qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed maxay aad fariintaas mid xana ma ahayn mid aan fagaar ka sheegay heeday waxa waaye dadkuna hadii oo wada dhashay ninka la yiraahdo ma ahan in la kala gambado annaga mataqaanaa siyaasiyiin waxna maqsayaan siyaasiyiintu waxa waaye ayaga hadii rabaan macnaha si kale soo arkaro biyo hoos iska arkaa annaga dad magac wiil yiro meesha degan lahay gaar ahaan hadda aniga waxaan ka soo jeedaa beesha Mursade waxa ila degan Habargidir iyo Abgaal iyo Xawaadle bal hadii la ayaga ila dhasho waxa waaye ninka la yiraahdo marka in xoogaa mataqaanaa ka qarsado culayska jirana wax weyn oo macnaha wax soo kordhimay sida jiraan ugu hadalnay waxaan ku ballanay kulli sida loo dhashay in mataqaanaa aan la soo hakrano la soo saari doono wax mataqaanaa meel kasta oo ay galama lagu dabageli doono culayska aad dareemaysaan oo jiro aad sheegayso muxuu yahay ma culayska aan sheegayaa waxay tahay annaga hadda qabiil beel ahaan deegaamadaas aan degno kama jirto Mursade laakiin waa wadan wax badan ay nimanku haystaan ogaa ninka la yiraahdo ilaa culayska dul saaray intaas laga dul qaadana ma rabno inaan mataqaanaa isaga aqoomiye aan ku galno ilaa ayaga laga fudiyana waxa waaye lama geli karo dadka lama rabo in aan anagu dhibaatayno waxa waaye in anagu ayaga dadka naseexa u geyno waa ujeedkaan u soconaa waa tahay marar badan ayay dawladdu iyo idinku iskaashanaya qabiilkiina gudaha u gasheen Ceelbuur deegaano badan gacanta ku dhigteen waxa sababa in deegaan gacanta lagu dhigo dib looga soo baxo maxay tahay waxyaabahaas waqti yaa dhilay ma rabo in aan wada mataqaanaa si siyaasiyan aan ugu hadlo ama mid waxaan oo aan ma yahay inaan ka warrabana ma rabo
laakiin hadda waxaan rajaynayaa haddii la ogolaado in sida ilaahay oon uga barannay aan ku guulaysan doono soo dhammaystiri doono hal mid oo keliya madaxweynaha soomaaliya u dirayaa waxay tahay oo aan rabo inaan u diro halkaa aan saaka fariin uga dirayo madaxweyne xasan sheekh waxaan ka codsanayaa saraakiisha ciidanka inta dib ugu laabto saraakiil aan u malaynayo in siyaasada ku jirtaa jirtay sargaal siyaasada ku jirta inaan shaqo loo dirin mid shalay al-shabaab ka soo goosta aan shaqo loo dirin kuwa haayana dib loogu laabto mataqaanahay waxaan ka codsanayaa marka saas intaasaan rabaa inaan asigan u gudbiyo waxaan rajaynayaa inay gaari doonto dadkuna aad gaarsiin doontaan markii xigo xageed jecesha in wareys lagaga qaado waxaan rajaynayaa caga cadde ama galhariiri inaan ka soo hadlo maanta maalinteeda kale haddii la ogolaado aan naf ku gaaro waa tahay aad baan ku mahad celinaya taliya aad iyo aad wuxuu ahaa taliya geylac gaashaanle ka tirsan ciidanka militariga haye kala reebin darajada aan leeyahay gaashaanle sare okay waa tahay taliya geylac gaashaanle sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayuu ahaa waxaan ku sugannahay wara dhuuma leh oo ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya wareysi ka lamid oo idin soo gudbin doona haddii alla idmo